بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. qaybtan waxaan uga hadlaynaa marka waa qaybtii labaad ee cashirkeena sunflower-ka. waxaan uga hadlaynaa marka propagation-ka. geedkan sidee loo baahiyaa? geedkan saan hore u sheegnay oo cashirka maana introduction-kiisa aan kusoo aragnay, waxaa loo baahiyaa seed-ku ka baaha ama waxa shay maadaama geedaha mar loo baahiyo in geedka geed laan laga jaro, marna loo baahiyo in seedkiisa la abuuro, marna loo baahiyo in shay oo cells-kiisa wax laga sameeyo. waxyaabahaasna waa jirtaa, laakiin kan waxyaabaha ugu badan uu ku baahaa waa seedka ama seedka requirements-ku u baahan yahay. marka generally marka waa very easy to grow. geedkan seeds in la abuurta waa waxyaabaha ugu fudud maadaama uu seedkiisa dhulka ku ridanaysaa deedna waa kuu soo baxaya. marka seedkaas marka waxaa laga rabaa inuu ku yahay seed cudurka ka hortagayo oo seed la isku halay karo oo adigu meel xanaanaysan oo seed ahaan loo xanaaneeyay. marka temperature-ka uu ku bixi karaa muxuu yahay? temperature-ka uu ku bixi karaa waxa waaye waa 21 ilaa 25.5 degrees centigrade ama 70 to 78 Fahrenheit ayuu ku bixi karaa. marka waxaa lagu abuuri karaa marka dhul aad u ballaaran ama plenty of space ayaa lagu abuuri karaa geedkan. marka asaga isma dhibo oo waxa waa shay problem iskuma keeno maadaama uu geed oo erected yahay oo dhuuban oo kor u baxa. marka wax problem iskuma keeno oo geedaha dhinacyada oo ka baxo laamaha geesaha kule maahan. marka sida daraadeed waxaad ku abuuri kartaa large ama plenty of area ku abuuri kartaa, marka ama plenty of space. marka sidoo kale waxaa lagu abuuri karaa space adoo isku compact greens ayaad ku abuuri kartaa. marka sunflower-ka marka waxaa la abuuraa varieties of soil of soils ayaa lagu abuuraa ama longy as they are not in water logged. dhulka aan biyuhu fariisana lagu abuuraa. biyuhu u baahan yahay laakiin haddana biyaha sida breeze-ka ugu baahan. waxa waaye wuxuu noqon karaa waxa ku abuuri kartaa area oo kuleyl ka jiro. marka pH-ka aad ku abuuri karto ama carrada cusbadeeda aad ku abuuri kartaa waxa waaye waa 6 to 75 pH-kaas. marka waxaa lagu dhahay 6 above marka aad ku abuuraysid recommended ma lagulama talinayo. 6 above inaad ku abuurto lagulama talinayo. marka waxa talada ugu fiican oo lagu siinaya markaad geedkan abuuraysid pH-ka ugu fiican aad ku abuuri kartaa waa 6 below ama 6 wax ka hooseeya. pH-kiisa cusbada waa inay 6 ka hooseysa ama 6 ka tahay, laakiin wax ka koreeya lagulama talinayo lagu dhahay. marka waa in lagu abuuraa lagu dhahay in area oo laga helayo sunlight ama qorrax ka jirto maadaama uu wax badan cadceed uga baahan yahay. sidoo kale waa in dabayl jirto. dabayshaas inay badnaato muhiim maahan, laakiin waa in dabayl jirto. marka dabayshaas si marka dabaysha badan meesha dabaysha badan loo yareeyo waa in fence uu jiraa. fence ama wax ku wareegsan waa inay jiraan. waxaas waxay noqon karaan derbi aad dhistay, waxay noqon karaan geedo la abuuray, ay noqon karaan. sunflower marka originated from the dry Pioneer region ka soo jeeda of North America. marka and they are drought resistant. waa saan hadda ku sheegayna biyo badan oo baahna waa drought resistant. marka they are easy to grow. marka inaad beertaa waa fududa. they don't prefer for greenhouse with still jira meelaha caruurta ku ciyaarto maadaama uu caruurta uu indho soo jiidasho leeyahay waa laga ilaaliyaa. marka planting qaabkee loo abuuraa marka maadaama aan sheegnay in seedkiisa la abuuro oo propagation-ka saas loogu sameeyo. qaabkee loo abuuraa? waxaa loo abuuraa mostly easy to grow to direct seeding. si toos ah loo abuuraa. dhulka toos u gelinaysa macnaha nursery ma soo marayo. marka dhul banaana waa lagu abuuraa oo outdoor ah, macnaha greenhouse uma baahna. waa shay dhul banaanad ku abuuri kartaa.
marka in long growth season waa la abuuraa xilliyada oo macnaha oo soo qabow badan soo soconin maadaama dadka hadda barnaamijkan aan ka soo xiganay ay dhul tijaabada ay sameeyeen ay dhul ku sameeyeen qabow ah waxay ku sheegayaan xilliga oo season oo dheer yahay oo de aan baraf imaanin ama oo wax da'aynin bay kugu la talinaya inaad xilligaas abuurtid xilligaas marka waxay u yaqaaniin maadaama ayaga springka wixii ka dambeeya ay galaan summerka wuxuu kuu sheegayaa in xilligaas uu yahay xilliga ugu habboon ee ayagu wax beera karaan laakiin annaga markii naloo fiiriyo xilligaad rabtidaad beera kartaa Soomaaliya marka gudaha Soomaaliya joogto xilligaad rabtidaad beera kartaa because xilli kasta waa long season xilli aad beera karin ma jirto however marka application-ka loogu sameeyaa marka siinayso filtration-rada iyo waxyaabaha la socdo dhan aad siinaysaa marka filtration uu u baahan yahay laakiin waxa lagu dhahay ugama baahna wax badan marka qaabku ugu baahan yahay wuxuu ugu baahan yahay uu isticmaalaa inuu rootkiisa ama stemkiisa ku adkeeyo ayuu u baahan yahay maadaama uu madax culus saaran yahay waxa weeye si uu stemkiisa u adkaado waxaad u baahan tahay inaad geedkaas siiso wax salkiisa adkay kara sida phosphorka oo kale waxaad siin kartaa nitrogen oo phosphorka u badan yahay ayaad siinaysaa deedna waxa waaye geedka salkiisa uu adkaanaya wuxuu growthkiisa wuxuu noqonayaa growth qurux badan marka wuxuu noqonayaa geed resistant loo istifaacaya adigoo marka geedkii markii hore seedkiisa aad resistant ka abuurtay haddana aad u samaysay kii sheegeen xididkiisa ama awood siisay oo phosphorkaagii iyo rate of growthkiisa aad kordhisay deedna aad cudurradii kala dagaalantay marka waxa ku soo baxaya seed nadiif ah oo iyo geed qurux badan oo muuqaal ahaan ku raaxaysan kartid seed ahaanna de aad ka heli kartid product aad u fara badan marka general care wuxuu guud ahaan u baahan yahay marka wuxuu u baahan yahay sunflower drought resistant sidaan hore usoo sheegnay frequent deep watering wuxuu u baahan yahay si uu inaad biyaha u soo celiso u baahan yahay si aad u sameeyo development marka strong root na uu yeesho waa the plant do not require uma baahna lagu fertilizer indeed in addition of nitrogen maahan uma baahna lagu marka sadraad marka waxa aad siinaysaa oo fertilizer-ka aad siinaysaa waa yari aad u yari waa phosphorkaas aan ku sheegnay iyo nitrogen-kaas haddaad siiso wax kale kaaga ma baahna inta kale waxa waa dhulkiisa ka heli karaa halkaas ayaan waxaan kusoo gabagabeynaynaa qaybtii labaad ee cashirkeena ku xidhnaa beeraha TV si aad uga bogato barashada cilmiga beeraha. Assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh.